habdhaqankaaga shakhsi iyo sidaad u aragto nolosha waa mid ka mid ah waxyaabaha qaabeeya noloshaada adduunyo iyo midaada aakhiro. haddii dhaqankaagu wanaagsan yahay waxaa hagaagaya wax walba oo noloshaada iyo tan bulshadaada kala dhaxaysa ku saabsan, balse haddii uu xun yahay waxaad halis ugu jirtaa inaad naftaada iyo bulshada aad ku dhex nooshahayba dhibaato u horseedo. arrintan ayaad mooddaa in annaga ka bulsho Soomaali ahaan ay tahay dhibaato weyn oo na haysata, balse aynan ku baraarugsanayn, taasoo caqabad ku noqotay in dalkeenna iyo dadkeennuba la tartamaan bulshada kale ee caalamka. kibirka iyo aragtida ah in aan dadka kale wax dheernahay waa mid ka mid ah dhibaatooyinkan haysta. marka aad eegto bulshadeenna waxaad mooddaa inay nagu badan tahay dhibaatooyinka ka dhashay isla-weynida oo ay ugu horrayso cunsuriyadda aan kula dhaqanno bulshooyinka kale ee caalamka iyo xitaa innaga dhexdeenna. qaar badan oo ka mid ah dadkeenna waxay caadi u arkaan liididda haddii ay ahaan lahayd annaga dhexdeenna iyo ummadaha kale Ilaahay abuuray, sidii inaan u adeegsanno magacyo ay ka muuqato cunsuriyad. kuweenna wax soo saarka leh ma dhiirigelinno, balse waxaaba suuragala inaan ku cunsuriyeyno shaqada wanaagsan ee waxtar kale ay bulshada u hayaan. isla weynida iyo liiditaanka dadka kale waxay kugu hagaysaa inaad weyso waxyaalo badan oo noloshaada iyo horumarkaaga muhiim u ah, sida in aad hal meel taagnaato. maxaa yeelay qofka isla weyni wuxuu isu arkaa in uu dadka ugu wanaagsan yahay, taana waxay keenaysaa inuusan tallaabo hore u qaadin. waxaad luminaysaa kalsoonida bulshada, maxaa yeelay qofna ma jecla in uu kalsoonidiisa siiyo qof isaga hoos u dhigaya. waxaa hoos u dhaca wax soo saarkaaga, gaar ahaan marka aad shaqo qabanayso, maxaa yeelay qofka isla weyni aragtida dadka kale ma qaato oo waxa uu u arkaa intiisa ay wanaagsan tahay. sidoo kale haddii aad tahay qof isla weyn waxaa kugu adkaanaysa inaad dadka kale garab weydiisato. xadiis laga wariyey saxaabiga Cabdullaahi ibn Mascuud Allah ka raali noqday ayuu nabiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee ku yidhi, jannada ma gelayo qof uu qalbigiisa ku jiro in yar oo kibir ah. dabeecadaha wanaagsan waxaa ka mid ah in aad ixtiraam u muujiso dadka oo aadan fuquuqin, iska weynaysiin, naftaada aadan u horseedin kibirka oo ah dabeecadda Eebbe inaga mamnuucay. Eebbe waxa uu ku yidhi suuratul Israa aayadda 37, dhulka ha ugu socon si kibir ah, ma awoodid inaad dhulka jeexdo, buurahana dherer kuma gaartid. aayaddan wuxuu Eebbe nagu xasuusinayaa awooddeenna ka bini'aadam ahaan iyo in aynan xadgudbin oo dadka aynan iska weynaysiin. bulsho walba oo tashata oo ka tagta waxyaabaha dib u dhigaya oo ay ka mid yihiin qodobada aan kor ku soo xusnay waxay eegsataa horumar. tusaalaha ugu wanaagsan waxaan u soo qaadan karnaa dalka Singapore waxay ka mid tahay dalalka uu aadka u korayo dhaqaalahooda. waa dal bulshadiisa lagu qiyaaso 5,637 milyan, badkiisuna yahay 734.3 kilomitir square. waa dal aad u yar balse uu dhaqaalihiisu aad u sarreeyo. waa dal uu dhaqaalihiisu ku dhisan yahay ganacsiga iyo maalgashiga dhinacyada warshadaha, dhismaha, waxbarashada, caafimaadka iyo adeegyada kale ee bulshada. dalkan oo dhaqaalihiisu aad u hooseeyey kadib markii uu xorriyadda qaatay sanadii 1965 wuxuu sameeyey koror aad u sarreeya oo dhanka dhaqaalaha ah. bulshada reer Singapore waxay horumarka ku gaareen waxaa ka mid ah inay yihiin bulsho horusocod leh, ganacsi jecel, shaqaysta, dadka aan takoorin, oo caalamka kula saaxiibay ganacsi iyo maalgashi soo dhoweyna leh. waa dal aan lahayn ilo dhaqaale oo dabiici ah, balse leh wax ka qaalisan oo ah habdhaqanka wanaagsan ee bulshadiisa, taasoo sababtay inuu caalamka la sameeyo ganacsi ka dhiga dalkaasi inuu ka mid noqdo dalalka ugu sarreeya ee dhinaca dhaqaalaha caalamka. haddaba annaga ka Soomaali ahaan sax ma tahay inaan weli ku sii jirno isla weyni, faan iyo cunsuriyad aan dhexdeenna iskula dhaqanno, bulshada kale ee caalamkana kula dhaqanno, iyadoo aan ognahay in dalkeennu kaalmaha hore kaga jiro marka laga hadlayo musuqmaasuq, abaaro, nidaam xumo, jahli iyo waxyaalo kale oo badan oo kuwaa ka sii liita. waxaan u baahannahay inaan isbeddel samayno kana bilowno nafteenna. magacaygu waa Xasan Nuur, mahadsanidin.